السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عطباني سلام يا دمانتين با سود وادا حمي في عم هذا لا يميل تشوفتين با وقت وهيني في عناده وحين كهذا لنا عاب روماتيسم كو حنون كدعة لابتوينك روماتيسم كنا نوع ugu badan ugu badan arthritis-ka kaas oo sababa nidaamka difaaca jirkeena. Arthritis-ku hore aynu ugu soo hadalay qaybo ka mid ah arthritis-ka. Caawan waxaan ka hadlaynaa rheumatism-ka. Programkana waxaan ugu talagalay in bulshada ay fahamto xanuun had iyo jeer ugu badan marba xanuun ka mid ayaan soo qaadanaynaa waana u sharaxaynaa si ay u fahmaan ayna iska ilaaliyaan waxyaabaha ku sababi kara ay iska ilaaliyaan. Ilaah wuxuu ilaaliyaa. Marka caawa waxaan soo qaadanaynaa rheumatism-ku ay nidhi nooca ugu badan ee arthritis-ka ee uu sababo difaaca jirkeena. Xanuunkan wuxuu u dhacaa qaybta difaaca jirkeena ayaa si qalad ah u weerarta oo jirkeeni waxay qaybtii difaaca jirkeena ayaa si qalad u fahmaya marka qayb ka mid ah jirkeeni ayuu weeraraya. Rheumatism-ku wuxuu ku dhacaa meelo fara badan ay ku dhacaa hadii jir wuxuu u badan yahay laakiin laabatooyinka ayuu ku badan yahay. Wuxuu kale ku dhici karaa oo kale maqaarka jirkeena oo kale ku dhici karaa. Wuxuu kale ku dhici karaa sanbabka. Waxa kale oo ku dhici karaa wadnaha, indhaha oo kale qaybo badan oo jirkeena ah oo ku dhici karaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa rheumatism-ka ku dhaca laabatooyinka jirkeena. Sidee ugu dhaca laabatooyinka? Rheumatism-ka hadii jeer wuxuu aad iyo aad u saameeyaa laabatooyinka yaryar sida kuwa faraha oo kale. Laabatooyinka faraha siba faraha yar laabatooyinka yaryar oo kale ama kuwa adinka oo kale ama kuwa faraha oo kale ama adinka ay ku dhacaa. Wuuna ku dhici karaa laabata kasta ku dhici karaa. Ruugu ku dhici karaa. Wuxuu ku dhici karaa garabku ku dhici karaa. Wuxuu kale ku dhici karaa misigta, qoorta ku dhici karaa. Laabata kasta wuu ku dhici karaa. Laakiin hadii jeer wuxuu saameeyaa laabatooyinka yaryar. Wuxuuna ugu dhacaa hadii jeer wuxuuna qofka saameynayaa si isku mid ah. Iminka hadduu qaybta bidix kaga dhaco qaybta midigna wuu kaga dhacaya. Marka haddaad isku aragto xanuunka uu ku saameeyo labada qaybood ama labadii adin ama labadii gacmood ama labadii laabato oo si isku mid ah ku saameeyay hadii jeer wuxuu u dhow yahay xanuunkan. Marka xanuunka rheumatism-ku jirkii ayaa weeraraya. Tusaale ahaan wuxuu ku dhacay laabatadii jirkii buu weeraraya. Markuu soo weeraro unugyadii laabatada ayaa la burburinaya ay saameynaysaa qaybtii difaaca jirkeena waxay soo diraysaa chemical process kadib ugu dambeyntii siduu wuxuu u sameysmayaa waxa weeye wuxuu burburinayaa ama waxyeeleynayaa carjowdii waxyeeleynayaa kadibna wuxuu waxyeeleynayaa laftii. Carjowdii iyo laftiiba wuu saameynayaa oo wuxuu ka saaraya wuu burburinayaa. Marka mar haddii labadiiba uu saameeyo waxaa dhacaya in labadii lafood ay hoos isku soo dhacaan oo intii u dhaxaysay labadii lafood ay isku soo dumaan. Marka ay isku soo dumaan way isqabsanayaan oo kale aakhirkan doon la daweyn aakhirku isqabsanaya. Marka hadii jeerna waxyaabaha uu sababo waxa ka mid ah markuu uu burburiyo kale ama uu saameeyo caabuq baa imanaya, barar baa imanaya. Caabuq markuu barar baa imanaya. Markuu barar yimaadana kadib waxaa imanaya in laabatadii shaqadeedii hoos u dhacdo. Laabatadii ay hoos u dhacdo shaqadeedii. Hadii jeer xanuunkana waxa uu lagu gartaa tusaale ahaan oo kale xanuun buu yeelanayaa oo kale xanuun buu qofka ka cabanayaa. Wuxuu kaloo ka cabanayaa oo kale qalafsanaan ama adayg dhowr laabatooyin oo kale. Weliba qalafsanaantan ama adaygan oo kale wuxuu had iyo jeer sii xun yahay oo had iyo jeer ugu badan yahay subaxii marka qofka subaxii 30 daqiiqo kadib oo kale ama dhowr saacadood oo kale kadib
ayuu ayuu aada u xun yahay oo qofku ilaa laabatadii aanu kala saari karin oo kale hadduu adinka ka dhaco kale ilaa uu caawiyo gacantii kale ama uu dareemayaan adeeg uu dareemayaan. waxaa kaloo uu haysmayaa oo kale hadday jeer barar baa imanaya oo kale. marka xanuunkan hadday jeer ama haddada qofku uu maydhoo kale biyo kuloo ku maydhoo kale markaasuu dareemayaa ayuu inuu fiicnaan dareemayaa, ama markuu yara wax activity oo kale ama wax yara qabqabtoo kale ayuu dareemayaa. marmarka qaarna xanuunka ayaa maalintii o dhan hadduu doono qofku uu adeygaas iyo waxa uu ka cabanaya. qofka kale wuxuu ka cabanaya daal oo kale ayuu ka cabanaya oo kale, iyo awooddiisii hoos u dhacday ayuu ka cabanaya. muruqyadii farihii oo kale subaxdii oo kale hadduu imanka tusaale ahaan oo kale wuxuu dareemayaa habeenkiina way ka yara fiicnaanaysaa, laakiin subaxdii marka kooka wuxuu arkaya gacmihii isbedelay buu arkaya. hadduu is yiraahdo imanka tusaale ahaan oo kale fargal oo kale geli subaxdii waxa laga yaabaa inuu ku geli weydo, laakiin maalinta markaad ka yara shaqeyso iska okay noqoto waxa laga yaabaa inuu ku galo. marka isbedel buu ku arkaya. hadday jeer calaamadaha lagu arkaana waa mid labada qayboodba ah, ama labada gacmoodba ama labada adinba, waa labada si isku mid ayuu ku saameynaya. marka xanuunkan aada iyo aadna wuxuu u saameeyaa laabatooyinka. maxaa daba sababa xanuunkan? lama ogo hata wax sababa, waxa sababa ma cadda weli, laakiin waxyaabo kale oo sababa waxa ugu badan oo kale hiddasidahoo kale, ama waxa weeye ama qaybta deegaanka oo kale sida tabaakadii sigaarkii oo kale waxyaabahaas oo kale, ama infection oo kale bacteria infection oo kale, taasina way saameysaa. xanuunkan waxa kale oo hadday jeer si isku mid kuma saameeyo, si kala duwan buu saameeyaa. waxaa laga yaabaa adiga inuu si khafiifa kuu saameeyo, qof kale waxa laga yaabaa inuu si daran u saameeyo oo ay calaamadihii iyo si aada iyo aada u saameeyo. qofna qof hadday jeer laba mid ah way kala duwan yihiin, qofba wax gooni ayuu ka cabanaya. waxyaabaha ugu badan ee hadday jeer sida ama dhakhtar ku ogaadoo kale, sidee uu dhakhtar ku ogaanaya? mar haddaad iska shakido xanuunkani qof kastana ku dhici karaa, dadka iyo dhalinyarada iyo kuwa waaweynba uu ku dhici karaa. haddii uu qofku aan hore looga day xanuunkan stage marxaladu soo maraa. marxalada hore haddaan la daweyn, aan la controlin oo aan dawadiisi lagu siin, waxaa laga yaabaa in qofka ay kusii xumaato. 80% in ka badan haddaan la daweynin ama qofka dawo la siin 2 sano gudahood, waxaa laga yaabaa inuu laabatadaadii ama kalagoyskaagii weeraro oo waxyeeleeyo carjowdii, uu dhaawaco carjowdii iyo laftiiba haddaan dawadiisa lagu siin, aan dawo lagu siin 2 sano gudahood inuu saameeyo. waxaana hadii jeer lagu garan karaayo kale dhakhtarkoo kale wuxuu ku garan karaayo kale ama ku waxayn karaa si guud oo kale hadduu calaamadihii oo kale su-aalo ku weydiinaya, waxyaabaha aad ka cabanayso oo kale ayuu ku garanayaa calaamado iyo waxyaabaha hadii jeer aad ka cabanayso oo kale. dhiigoo kalena waa la baadhaa, dhiigna wuu leeyahay, dhiigna waa lagu ogaadaa, ama hadii jeer x-ray oo kale ama sawir oo kalena waa loo diraa, dabeetana si laabatadii loo arko uu saameeyey. qofkana hadii jeer wuxuu ku samaysmaa farahoo kale hadduu kaga dhaco farihii oo qalqalloocsama, hadduu xaaladda ugu dambeyso xaaladaha dambe uu gaadho inay farihii qalqalloocsamaan oo kale ayaa laga yaabaa. marka aad iyo aadna waxay muhiim u tahay in aad markaad iska shakido ama aad waxyaabahaas ku aragto inaad dhakhtarkaaga u tagto, la tashato, isaga ayaa kuu sheegaya dawada ku habboon iyo wixii ku munaasiba ee markaa lagu sii aad qaadanaysid. dawadu qaybta dawadoo kale wax dawo ah oo rasmi ah oo meesha ka saaraysa xanuunka rheumatism-ka ma jiro, laakiin waxaa jira daawooyin xanuunkii lagu siinayo, xanuunkii hoos u dhigaya, bararkii oo kale, caabuqii oo kale, iyo daawooyin kale oo taargad garanayo kale inaanu xanuunkii sii kordhin, aanu sii dhaawicin jidhkii, laabatadii sii dhaawicin, laftii sii dhaawicin, muruqii oo kale laftii iyo carjood wixii sii dhaawicin, markaa halkiisa ku haynaya oo aanu hadduu marka horeysaba lagaa helo halkaa ku controlaya. haddii qofka la daaweyn waayo oo marka warka dawada iyo waxyaabaha u qaadan waayo
hadhow waxaa laga yaabaa in xanuunkii sii xumaado uu sii dhaawaco laabatadii ilaa hadhow noqoto in laabatadii qalin ama macmaliyad qalin oo kale loo suubiyo oo ay ama la bedelo laabatadii la bedelo ama haddii laabatadii bedelkeedu macquul noqon weydana labadii lafood la isku xidhiidhiyo si laabatadii meeshii ay uga baxdo. marka hadii jeerna waxaa muhiima qofku inuu hadduu miisaan badan leeyahay oo kale hadduu qofka uu xanuunkan oo kale qabo inuu miisaanka iska lumiyo iska yareeyo haddaad miisaanka yareyso wax badan ayay ku anfacaysaa waayo xanuunkani laabatado ayayna ku dhacaa haddii uu miisaanka lumo qofku miisaanka iska yareeyo kale aad badan ayay u anfacaysaa waxaa ka yaraanaya qalafsanaantii kale miisaankii badnaa iyo culayskii badnaa ayaa ka yaraanaya. marka fadlan haddii aad xanuunkan oo kale qofku haddii xanuunkan oo kale la nooshahay waxaan kusoo gabagabeynaa qof haddii xanuunkan oo kale aad la nooshahay waxaa muhiima inaad dhakhtarkaaga la tashato aad la xidhiidho mar walba haddii aad leedahay calaamado adoo dawadii qaadanaya haddii jeerna aad ku aragto iyagoo isbedelaya marba ay soo isbedelaya oo kale aan kaa tegaynin waxaa muhiima dhakhtarkaaga la hadasho la xidhiidho dhakhtarkaaga isaga dawada kaa bedelaya jimicsiga oo kalena aad buu muhiim u yahay waxyaabahaasoo badanna aad iyo aad bay ku caawinaysaa. marka caawintaasaan kusoo gabagabeynaynaa aad iyo aadna waa u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.